dhammaantiin melbo dunida aad ka joogtaan walaashiin baryara barwaaqo idin dhehaysa kulanti wacan oo wanaagsan maanta waxaan rabaa haddii allah subxaana watacaala inoo qadaro in aan idinla sheergareeyo arrinta aniga waa u waayay xal laakiin waxay tahay waa barnaamijkeenii la magac baxay ila tali marka barnaamijkeeni ila tali walaal waxay tahay maantay familigan way isqabaan reer ay waaye awlaad ayaa dhexdooda taalo anu ma wareysan meeqaa dhexdiina yaala iyo ma dhihin abay caruuran isku dhalnay igu dhahday bis marka sheekada meeshan ku soo ekeysay caruur ma isku dhasheen ha period okay aniga hal hadduu toban yahay waa isku kaymid waa waxay isku kaymid yihiin de midka haddii la dhaawaco iyo haddii tobanka la dhaawaco waa the same marka qalbi xanuuna kale ma ka fiicno soo maaha qalbi xanuunku waa iska qalbi xanuun okay qalbi xanuun marka waxaan u leeyahay waxay tahay ilmihii dhaawaca soo gaarayo inta badan barnaamijkan waxaan oga hadlaa waxay tahay I feel it because aniga hooyadii ay soo korsatay aabahay ma nool yahay aabahay halkuu jooga yes aabahay wuu kaa soo indho waa weyn yahay hadda wax yar ka hor ayaan wada sheekaysanayna aan wada baashaalayna wada qosleyna wali xataa ana aabahay markuu isoo wacay telefoon iyo waxaas maskaxdiisa juusam ku noqonaa ilaa iyo kaamirada walow guriga aabahay la igeegeyn jiray laakiin oo hooyada iyo aabahay aysan isqabeen laakiin still waxbaan go'anayaa waxbaan tirsanayaa ma fahantay waxbaan go'anaya waxbaan tirsanayaa okay hooyadii waxbay go'anaysaa waxbay tirsanaysaa dulmiyay ee tirsanaysaa aniga waxaan tirsanayaa dulmi okay hase ahaatee horaan usoo arkay waalidka ilmaha uusa korinin inuu dhalay laxawgeedu wuu hayaa laakiin kuu soo korsaday iyo midkaan uusa soo korinin isku mid ma ah waan arkay family badan ayaan arkay now midda aan marka aan ka hadlaa waxay tahay waa caruur markaa maqlo hooyadoodii aabood kala tagay I remember walow nolol xun aana ku soo korin walow nolol ciriiriya aana ku soo korin hooyaday aniga aan u weynaay hooyaday labadeedaas indhood ay iga jecleed reer abtigoo dhan way wada yaqaanaan waxaa la dhihi jiray anoo yar oo ilmo ah taasaa u talisaa la dhihi jiray wax talana kama waana qof waxaan iska ahay oo iska happy ah oo markaygii aan yaraayna ma dhib badneen markaan soo weynaadana ma dhib badneen haddoo maaragtay qof weyna aan ahayna ma dhib badne marka laakiin waxa waaye waalidka mar walbaaba cunuga uu jecel yahay ayaa xoogaal yar lagu bushkaraya ma fahmino marka waxyaabo badan oo hooyada lagu dhaleeceeyay aniga xaggayga way jirtaa laakiin micnaha waxaan ka hadlaa waxay tahay dadka aniga xayaatadayda og ayaa jiray laakiin markii for example ay xoogaa nolol ciriiriya qofta bini aadanka nololka 100% maxaa la dhahay uguma ay jirto laakiin mararka qaarkood marka xoogaa ay maarkino dhaqaalaha u kaa siisto waxba si ay kaa noqdaan oo maarta xoogaa meel aad ka janjeertid dhinaca dhaqaalaha markay tahay dan ilma aad haysatid mar walbaaba waxaadan huraynin waa ilmaha aabahood qofkii marka waxaa leedahay walaalo sidaanaa jirto kelmado qurux badan marka aniga dhagahayga hooyada kagama soo dhicin markaan waraysi aan u sameey calaa kulli xaal aniga marka ilmahii waa la goconaa hadday hal yihiin iyo hadday boqol yihiin waa isku kaymid gabadhi ma sii dhexgeli ma dhihin meeqa ilmooda haysataa filan ma dhihin gabadhu waxay sheegatay wiilkan iyo gabadhan marka horeba dhinaca dhaqaale inuusan ninka ku fiicneen dhinaca dhaqaalaha totally ma ku fiicnaba wuu soo shaqaysanaa wax yaroo san ku dhareerte uu ku soo tuuraa walaalo waxaan waxma nooga war ilmihii xitaa wax ay cunaan waxay cabaan iyo maan waxba ma gaarayo niyahow maya dowladdu waa inaa wax weydiisataa dowladdu wax weydiisano maxaa kugu dhacay waa inaa wax qabataa waxay tiri marmarka qaarkood waxay dhahday markaan anigii waxaan xirtay waxaas aan waay waxaan magahay jir gabdhaha inaan guriga cilaan ugu soo saaro markino lacagta cilaan ku saaraysa baahi badan ay hayso
haweenaan ahay wax walba war maxaa dhahay isag macdur kaliya hadaan noqdaa aan waxaan wax ku kata aanahayn nin aan qabo oo shaqaysanayo maxaa kaa qaldan adiga ma magaaladan tuugsada ii sheeg waxay tiri dhinacaas saas waa tiri dhinaca sariirtay tiri asna ma ku qurux badnaa okay dhinacii awlaaday tiri asna ma ku qurux badnaa ninkan dhinacuu ku qurux badan yahay ma jirto waan u soo sabraayay tiri intaana u soo sabraayay okay wuxuu ku darsaday now inuu maartay u yiraahdo anigu reer baan yeelanaa hataa afra ii bana maada ii diidi karo maada iga yeeli karo maada san iga yeeli karo taani gogoshaan kuugu sabraayabe gogoshaan kuugu sabraaye gogoshi iguma aad qancinaysid naagta kale maxaad u sheegaysaa waxaa naagta kale u sheegaysa horta ba ani qanci gogoshi igu qanci oo waxay tir biilkeygii ani qanci horta ba aniga waxaad igu qancisaa hadda gabadhan waxay taagan tafiir ani gabadhu way la jid leedahay waxay taa hadaa doontid guursay tiri laakiin aad guursatidee tiri number 1 ay tiri aan horta sariirta igu qanci number 2 waxaan cunay waxaan cabo iyo waxaan xirto horta hore i qanci number 3 ilmahaagi qurxi intaas markaad qurxisid war midaa sheegaysaaye saddexda kuu dhimana guurso ayay ku haysaa asigana wuxuu leeyahay iimaankaa la'dahay balaayaa qabtaa ya anigu waan guursana shilina ima weydii kartid naagta cusub uu hadda uu guursana ayuu wuxuu rabaa inuu u dhigo guri yaa marka alaabta gurigaas la dhigaayo shilinkii yaa la cuna qabatayha maskiintii yaa kaloo la cuna qabatayna caruurtii war waayahe gabadhi wixii yakahay oo san ku dhareertada aasiinayso oo marka hore aasiinaysay ayaaba markaan aad wax u tari la adahaybo wixii wax u tari la marka hadaa tira biilkiina waa kaa goosana adiguna xamuum ku siinay maxaa dhahay ii sheeg wax kaloo aan kuu qaban karaa male de naag kale aan guursana waayo maxaad u geysay naagta kale ilmaha xaqoodii naagta xaqoodii naag kale ku guursanaysaa goormee naag guursan kartaa ani markii baryar ahaan layla hadlo goormee naag guursan kartaa waa intay gabadhaas ay sheegtay oo ah feerisi sariirta igu qanci number 2 war aniga i qanci waxaan cunay waxaan cabay waxaan xirtay isi number 3 de ilmahaagi ka soo xaq bax waa shaqaysataaye ma haddana intii iyadoo la taagan yahay ayaa haddana aad naag aadaysaa labay tiri labadaas waxaa aan u baahanahay inaad anigii caruurteeda naga dhex baxdid oo si toos oo cad dawladda aan ugu tago oo aan dhaho anigu la ima qabo ninkii qabay wuu i furay waa kaasa haddaad jaal saboor iyo iiga soo goynaysaan iyo haddii kalaba idinka hool idiin taalo waay laakiin waxaan kuu sheegay tiri ya maalintaad aniga albaabkaygas aad ka degatida tiri hadda waan ku cisoya ilmahayga aabbahood aad tahay buuq iyo ma rabi laakiin maalintaas waxay tiri lagama yaabay tiri ilmahaanay tiri inaan anigu u basan baaso kaligay adigana aad raaxaysatid balan waxaan kaaga qaadahay tiri in shilinka lagaa soo gooyo ilmaha la siiya dhaha ama cirka gal ama dhulka galay tiri ama cirka gal ama dhulka gal ninkii wuu cararay naagtii guursaday iyana wuu furay naagtii markuu guursaday naagtii cunugii u dhashay cunugii markii u dhashay dagaalay siisay wuu cararay yurubuu galay wuu ka sii cararay afrika meeluu tagay haddana wuu soo noqday yurubuu tagay yurub markuu tagay gabadhan waxaa la yidhi mar alla markaad ogaatid meeshuu ku xasilay yah noo soo sheeg waayahay ninkaana united state oo citizen ah waa citizen of united state noo soo sheeg waayahay wuxuu ku nagaaday yurub meel ka mid ah way baxday wuxuu tiri waddankaasuu uu ku nagyahay waddankaasuu degay waddankii muu degahaa adig farha nooga qaadaa la dhahay haye war ilmahaagii aad ka dhuumatay waxaad ka dhuumatay xaaskaagii aad xalaasha aad ku qabtay aad naagunkeed aad u furtay tii aad guursatay meel ma kaa soo saartay xaqi kuwaan aad ka gashay aad kaasna kaa firdhiye okay taas
meela jaal saboor ay kaga goranaysaa tana meela jaal saboor asiga dhammaan markuu isla hadlay wuxuu yiri ama shilinkeyga aan ilmo lagu korina waaya marka hore u guursanaysay way naagta u guursanaysay ya way midaaba qabtaaye oo ku dhahaysaba aniga imaba qancinayso sariirta kuma hadaaba naag u baahan tahay sariirtiaba ku qancil aday way naag kala aad ka doontay ilmaha taabe aba u baahaneen kuwaaba haysataa waa naagta kale aad u guursatay because naagta kale caruure ku dhalayso maahan de xaqi gurigan ka bax markaas guri kala raaso guri kala dhiso iyadu maba kuu diidana ruuxi ku diro 10 guri samayso laakiin aan horta xaqiiga ka soo bax oo ugu weynayba ku diro sariir weba iska cadaab maxaa igu soo xigay tir caloosheedii tir iyo dharkayga waxa ku xigay tir ilmaha xaqoodii ka soo bixi tir wariya hadaad ka soo bixinina war wallahi lacag aniga la iga jar inaad naag ku guursanayna hadaad ku guursanaysan albaabkaas aad ka deganaysaa buuq ma jira ay tir rabash waan ka degana u dhow guursaday naag kale guursaday naag kale lacagta lagu la fataalay aabay siday tir waan sameeynahay sameysay lacagta laga soo jaraayay intii lacagta laga soo jaraayay wuu iswaalwaalayay laakiin iyada telefoonka dhan way ka xiratay gurigeygana ma soo gali kartid ay tiri hadda Yurub la jooga Yurub markii la tagay waxaa la maagay Yurub dhan ugu raaxaysto la isku dhiibo kala arag labadii naag buuqoodii iyo mid heese iyo mid dhowr kale heese iyo aan ka nasto oo waxaa la arki jiray nin dhahay caruurtaydii ani horta hore been idin sheegi maayo aan iguna haddaad doontaan I don't give a care there's one thing wallahi oo bila oo tala shooyadaan fiirsadaa shooyo badanaan fiirsadaa oo Amerikaan ninka Amerikaanka oo dulliga haddii xitaa naagta uu sarabin muxuu ma taqaanaa I don't love her but I care about my kid ma jecli iyada laakiin waxaan care gareen waxay tar kidkayga haddana muxuu ku sii leeyahay ma taqaanaa muxuu sii leeyahay bal ninkaas fiiriya wuxuu leeyahay naagtan waa familygayga de wuu iska furayaa ma qabyo waa familygayga because waxay haysaa ilmahaygay haysaa ani iyada waxaan family ku nahay haddaan xitaa qabin ilmahaygay haysaa oo naagta kale aniga aan guursanayo mana soo dhaxgali karto aniga naagtaas iyo ilmahayga ma soo dhaxgali marka hore uu sheegay wuxuu leeyahay dhageysi yaray waan ku guursanaa Soomaaliya aniga haddaan naagtaas u baahanahay kuma guursadeen aniga dadkan waxaan ku jeclahay hadalka caad maana luuq ma jirto luuq mid maray waa mid dulli laakiin intooda badan Soomaaliya listen I love you and I want to have a future with you mi maqlaysa oo ku jeclahay mustaqbalana ka leeyahay laakiin caruur ayaan dhigal aan dhalay caruurta hooyay leeyihiin I have to inaan hooyadood la xiriiro si aan aniga caruurtaydana aan ugu tago haddaan hooyadii wacan ilmaha inaan u tago ma soo wada kari no raali ma ku tahay haddaan iyada jeclahay adigu kuma guursadeen leeyahay fiiriya ragga Soomaaliya maxaa saas looga waayay maxaa lagaaga waayay adi inta xitaa inaad tiraahdid second time haddii xitaa naagta ilmaha u soo dhashay uu sirribin fiiriya ragga waxay sameeyaan hadduu sirribin xitaa gabadhii yarta heedo hadda uu guursado ku carcaraadina maya ilmahayga hooyadooda ayaan tashal waa caynaysa naagta xunta uurayso saana dheesa maanta ilmahaaga hooyadooda may noqoto ha waayahay second waxa ku tan kale ku soo xigto waxay tahay ninkii oo ajaanibka ah wuxuu yiri she's my family waayo adiga waxaad ka cararaysaa caruurta adiga aad dhashay maxaad uga cararaysaa child support waayo Europe u aaday ama Afrika aad ka doontay child support the child support marka hore maxaad u dhalis marka hore gabadha maxaad guursanaysaa hadda laakiin waxa harta mid aad raadinaysaa oo arta inaad guursatid taas ilmo ma dhalayso soo midaan idin sheegaa marka midda aan sheegaa marka waxay tahay United States meel alla meesha doontay gal oo lagu soo siibaan ku dhahay sida cirbadii oo kale laga soo siibaa baa la qoranaana gabadha waxay sheegtay in ilmihiisa inuu korsado awgeed uu cararayo pointigaas dhab lagu siiyay rekorka ku jirta waa la gudbiyay xaq wadankaas la gudbixay qoftaas naga maqan dhag waa la soo saaray waxa yiri
maxkamad oo United State kulaxda gabadha ee deganta aabalan mar alla markuu airportka ka soo degtay tikitka ma laga bixinaa you have to inaad timaado haddaad imaanina dee qoladan aad la joogtid nabad kule ma joogaysidee dan maxaa kuu haray markuu soo degtay waa la qabta leena jeel kale la geeyay maanta marka ninkii wuxuu yeeshay family reeruu yeeshay hooyuu yeeshay walaaluu yeeshay abtiina adeer naagta yaa la juhuuba maxaa lagu juhuuba maya ninka noo soo daa waryaadahe oo shalay ilmaha ay idiin haysayna ninka ma la raadinaynin xitaa waa la bahdilay xitaa markay tiraahdo walaalayaalow ninkii intuu ka baxay ilmihiisiyaan hayaahe naabax orod shalma anagaa ku dhahanay ilmaha u dhal ilmaha yaa dhalay maanta markii America ay xiratay saasay ay kusoo juhuubayaan markii juhubku waxa looga qaadi waayay ay dacwatay tiri familkiisa meelanka gala la waaye familigiisa waxaa la yiri intaasoo kiiloomitir hadda u soo jirsataan hadda iyadoo suuqa ka adeeganayso aad il saartaan la yiri aad isla markaas aad ka carari weysaana la dhahay police hadday wacdo jail ayaa tahay 20 years jail haddiiba lagaa gudbiyo report oo report ba lagaa gudbiyo qoftaas reportka kaa gudbiso haddaad baabuurkeeda xitaa areada aad ku aragtid abisada marka horaaba lagu siinaa waxaa lagu leeyahay xalfad iyada laga casumay iyada xur waa meesha doonta aad meesha iyada joogto waad ka cararaysaa hadday booliisku wacdo adooda waxba aada ka halaynin ee booliisku wacdo warqadana ee la soo baxdo adigana warqadaa lagu siinaa you're gonna be in jail now marka family sidaas ay warqadihii dhash markii lagu siiyo oo bateri sheegashadii iyo awoodii ma arkino ee wax tari weyse ee wixii maagan hadda inay lacag u soo qaaraamaan in gabadhii la bariyo in gabadhii la wixeeyo ani waxaan dhahay walaashay qaali midankuu sheegaa ilmahaaga aabahood waay bini aadanka qalad uu galaa dhibaato waaweyn u geystaa hase ahaatee ilaaha lagu daayaa ma fahmino allah ayaa lagu daayaa mid sameeyaan dhahay midda aad samaynaysid waxay tahay waxaad tidhaahdaa iska soo daaya aniga waa iska cafiyey hadduu ilmaha dhiilkooda uu baxsanaayo ku dheh marka waxay tiri dhibaatadii dhaawacuu ii geystay ayaan ka sabri la ahaye ii gudbi mujtamacana waan fiirinaa idinka marka waxaad aad kula talinaysaan idinkay idin gaar tahay laakiin aniga waxaan kula taliyey in ilaahay aad isku xirtidood iska soo daysid ma fahmino oolaadaadana hadduu kuu biilaayo insha allah biidnillah soo walaashin baryar barwaaqo idin dhehaysaa intaan dib dambe ka kulmeen maya ku soo celi cajalka sabiskayga haddaada ka mid ahayn sabiskayga ku samee mararka qaarkood gabdhaha qaarkood markii la soo hadlaya waxay leeyihin baryar waxaasaa dhahday walaale makaa dhabba maya igama dhab ee anaa iska qof iska maartay kaftan jecel kodeh give me a call okay don't give me a call anyway the subscribe daada ka mid ahayn maxaa sugaysaa subscribe isaga qalay isaga si gacmaha xoogaa aabitaad ku yeel oo dhag ku sii notification bell-tigana taabo wax walbo on soo dhigo saa ula socotid anigu barnaamij kaliya ma soo dhigay barnaamijyaal kala duwan ayaan soo dhigay oo fara badan marna gacmahaan rogaa marna wejigaan kaakiga ahaan rogaa ma fahmino marna madaxan injirta ka hurgufaa marna baadhiga kale marna gurigaan shashaaxayo alaabtii kaa duqoodo aan dhahaa fahanteen soo maaha soo marka insha allah biidnillah the notification ka taabo markaas si aad u aragtid wax walboon soo dhiga soo maaha intaan dib dambe ka kulmayaan oo baryar barwaaqo idin dhehaysa gabdhaha igu cusub hay la yaabinaya kuwa hor way iskala kee qabsadeen markaan hadlayan dhahan jayniiskii sanka oo iska taagay ilaaha sidaan kan ka dhigay waxaan idin leeyahay intaasna waa idin la ciyaarayay
ha hilmaamin inaad comment bilowga ku qortid wixii fikradaada insha allah biidna allah ayay wixii u tahay in markino ay ku badbaaday insha allah biidna allah waxaan idin intaan dibna ma ka kulmayna fi amaan allah allah macak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ahla fi soon